جزا الله الشيخ خير الجزاء. su-aasha saddexaad waxa ay tahay waxay odhanayaan dadka qaarkood maxaad u diidaysaan ta'wiilka iyadoo cabdullaahi ibni cabbaas radia allahu canhuma uu awilay qowlahu tacaala yowma yukshafu can saaq iyo qowlahu tacaala fainaka biacyunina. jawaabtu waxay tahay cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa ka soo aroortay inuu ku fasiray aayaddaas saaqa inuu ku fasiray in looga jeedo shiddada iyo kurbada in looga jeedo ayaa ka soo aroortay. riwaayada caynkaasee sidaa laga soo warinayo duruq markaa kala duwan baa lagaga soo wariyey. bacdi baaxisiinta ka midii waxay yidhaahdeen kama sugna, laakiin sida qawiga ahi waxay tahay waa inay cabdullaahi ibnu cabbaas ka sugan tahay. ha ka sugnaato cabdullaahi ibnu cabbaase ta'wiilkii la diidayay kama mid aha, waayo waxaynay uga mid ahayn saaqa marka aayadda la eego lama macrifaynoo assaaq lama odhan, lamana idaafaynoo saaqihi lama odhan, saaqihi lama odhan, ee saaqu wuxuu ahaa munakkar. maadaamuu munakkar ahaa macnaha daahirkee soo degdegaya ma ahayn inuu sifo ilaahay yahay. haddii xadiiska ku soo arooray aanu jiri lahayn sifo ilaahay inuu yahay may soo degdegaynin oo aayadda kamay muuqan. oo saaqi mucaraf maaho cani saaqi lama odhan, can saaqihina aayadda laguma odhan. weji luqadii carbeed oo uu aqbali karo ayuu ku fasiray. laakiin xadiiska ayaa wuxuu faa'iideeyey saaqu qur'aanka munakkarba ha ku ahaadee in saaqii ilaahay loo jeedo oo xadiiskii bukhaariga wuxuu ku soo arooray can saaqihi. cabdullaahi ibnu cabbaasna xadiiskaasi inuu gaadhay amaba intuu gaadhay uu xasuusnaa ma ogin, oo saxaabi kastoo saxaabada nebiga ka mida waxaa dhici karta axaadiista qaarkood inay ka qarsoonto. marka waxaa suuragala xadiiskani inaanu cabdullaahi ibnu cabbaas ogaanin oo aanu xadiiskani soo gaadhin, dabeedna uu ku camal falay dee calaa xasabi macalim intuu ogaa. luqadii carbeedna weji uu ku aqbali karo ashcaartii carbeed ay ku yimaadeen uu ku fasiray. ta kale waxaa dhici karta raawi intuu soo gaadho xadiis inuu haddana wakhtiyada qaarkood ilaawo iyadaynaan naqli uba haynin in cabdullaahi ibnu cabbaas xadiiskaasi soo gaadhay. marka maadaama xadiiskaas cayimaya inay sifo tahay cabdullaahi ibnu cabbaas inay soo gaadhay aynaan haynin, ta'wiilkii la diidaayay cabdullaahi ibnu cabbaas kuma dhicin. ila daahirka aayadda kama muuqato saaqa inkii ilaahay loo jeedo lowlaa xadiiska markaa fasirayaa haddaanu soo aroori lahayn. marka waxaa la odhanayaa cidda markaa odhanaysaa waa awilay isbaatiya xadiiskan inuu cabdullaahi ibnu cabbaas soo gaadhay. mar labaadka jawaab labaad, qiraa'ada cabdullaahi ibnu cabbaas uu akhrin jiray aayadda waxay khilaafsanayd qiraa'ada jamaahiirta muslimiintu ay akhriyaan bay ka duwanayd oo khilaafsanayd. qur'aankuna wuxuu leeyahay qiraa'aat mutacadida. cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu akhrin jiray yowma takshifu can saaqin, yukshafu iyo yakshifu toonna ma akhrin jirin. ya mugayaru siiqaha laga dhigo ama faacil ha loo bineeye, yakshifu iyo yukshafu midnaba ma akhrin jirin, ee takshifu bitaa'i buu akhrin jiray. tafsiirka ibnu jariir iyo tafaasiirta kaleba raajac. maadaama qiraa'ada uu akhrin jiray yowma takshifu can saaqin, takshifu shay mu'anasa ayaa la tilmaamayaa, shay mu'anasa ayaa la tilmaamaya, ilaahayna ta'niis laguma sifeeyo. sidaas aawadeed macnaha mutabaadirka agtiisa wuxuu noqday maadaama saaqana shiddada loo isticmaali jiray, takshifu oo ta'niis marka ay tilmaamaysaana uu soo arooray oo aayadda uu sidaa akhrin jiray yowma takshifu can saaqin, dee taa faydaysaa ilaahay in lagu fasiraa dee ma suuragal aha. marka calaa xasabi qiraa'atihi ayuu shiddada in la faydaayo oo qiyaamadii ay kurbo faydayso oo kurbo muujinayso, kurbo inay qiyaamadu muujinayso uu saas yadaa u tilmaamay. sidaas aawadeed baa wax ta'wiiloo madmuuma aanu ugu dhicin cabdullaahi ibnu cabbaas.
أما آيات كلا للشيغي فإنك بأعيننا إنو كفصر بمرأة منا أما لقصوا النقلية أي ماذا قاركودنا يلاهدين ابن عباسنا اللون نسبيي بحفظنا وكلاءتنا أولا وحلورنا إياه كما السقنا عبد الله بن عباس إنو سيدا كفصري تاسوا مد السنة الثابتة أو سيدا الشيء يمرك هركينا مرلباتك هدايب السقناتو فرضا وتقديرا ما السقناه تاويلك مذموم كايدا للديدا يي معها ويا وحل يقانا قرآن كالتفسير باللازم وقت هذا قار كودين لغو فسره ومرنا معناها كلمة دولاده هيبا الله الشيقا مرنا معناها كاللازمة يا أيها الله الشيقا وحان اللي أكسون يا علماء دوين يدادا لازم الحق حق حق وحي كاللازمة هو حق مركا بأعيننا وحكا اللازمة هي إنو إلهي أركايو ودينه سوكو أركايو بحفظنا وكلاءتنا إلى الانتيضة آيات كسو قنطاي دي إنو إنه سوكو إلى لنايو يا اسم الدين أيان إنو إلى لنايو مركا عدة لازم كفسر طلبا قيبات بيو قيب سنتا عد أصل كالصفة النفيدو ديدي أو تري إلهي إندو مصقناني waxaa loo jeedaa ilaalin baa loo jeedaa ama arag baa loo jeedaa ama ricaaya loo jeedaa iyo cid asalka aan nafiino diidin laakiin laazimka bas ku fasiray marka cidda asalka nafiidoo tidhi ilaahay indha uma sugnaan ee waxa looga jeedaa waa ilaalin ama waxa looga jeedaa waa aragti uu ilaahay arkaayo taasi waxay ku dhacday ciddaasi taawiil markaa madmuuma oo la dhaleecaynaya ku dhacday لكن عند أصل كأن فين معناها اللازم كأكوفة سرتي وحلقوا حنباريا تأويل مذمومة إننا ياهين أصل كنا إنو ياهين مركا متسوغان ما دام النفي مركا إساقا أنو الشيقين وهي شيء إلا تلمامه أو وحكا لأن للنفيين ما الشيقا يسا وحكا لإلا ديدايو ذكر شيء دون ما سواه لا يقتضي النفي ما عدا سيدي قاعدة وطراهضه شيء إلا الشيقا إساقا أو وحكا لمركا أن لا الشيقين لا يقتضي نفي ما عدا ما كان سنة يوحي كالصهر إلا الديدا يولا نفينا واحد شرا مركا علماء دي السلف وحي استعمالي شرا وقتي هذا قارك هذا تفسير بالمثال تصالينا يكون فسران آيادا ومعاني ذا مركا بدنا يقصوك ذا قلي السبي وحي تصالينا يان نوع كم إذا أما فرد كم إذا أفراد يسوق ذا قلي السبي مركا ساميت كلا نوحو تصالينا يا ميت كلا اسم الديدا يان وعلماء دي لهم من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد اختلاف التنوع أي كم اختلاف التضاد كماها النوع ما قد قريس اختلاف اسكهورتشي هذا معها لكن كمر كان نوع الشيء النوع أكل الديدي مايو آياتنا وحي نقول السعام وحيالها إلا مثالية يمد ولما واسوق قد قريس إمكا الصراط المستقيم مركا لفسر أيو كتبت تفاسير تقاركود وحدكو أركيسا اختلافات لو رأى يا مفسرين تبع اسكو خلافي وقاركود ورنا يان صراط المستقيم كوا إسلامك قاركود يورنا يان وقرآنك قاركود يورنا يان والسنة قاركود يورنا يان وجماعة قاركود يورنا يان وأبو بكر يا عمر تفاسير تاس اسم دي ليسو وإن إسلامك تهيئ إن كتابك السنة تا اسم دي ليسو إن القرآن تهيئ إن السنة تا اسم دي ليسو إن يحوي خلفاء الراشدين كوددوا ذي تهيئ يا إن الصحابة وددوا ذي تا اسم دي ليسو كل ذلك واسوافقيان انت الصراط المستقيم كواتهي مركا وح اسكهر إيمانيا معها وح اسكهر إيمانيا معها مركا التفسير بالمثال بالإيرادا أشياء قار كودنا وح الإيرادا التفسير باللازم معنيه كاللازم يا الله فسر يا مركا وح اللوتش هذا قرآن كمعنيه سوى بداية هيو شيئا ظاهر كأو كتوسينا ينا وكتوسينا يا وحكا كاللازم ينا وكتوسينا يا يعني الدلالات كالفاظ أي فائدة يسو أنواع بعلماء وخيبية علم الأصول كان لقوا يقانا أو واحد جرت دلالة مطابقة وحلا يلاده وحلا دلالة التضمن وحلا يلاده وحلا دلالة الاقتضاء وحلا يلاده يا جرتا مركا وحوية أنواع الدلالات هو كالدوانته مركا النوع كستو أنواع الدلالات ككم ذا الدلالة ولا قد ليشدا مروح اللود ليشنا من باب دلالة المطابقة ومعناها جودة الشيء يصلى المامية
mar waxaa loo daliishanayaa min baabi dilaalati atadamun oo macno ay koobsanayso juz macnaha ka mid oo fardi afraadda ka mida la tusaalanaya lagu fasiraa mar waxaa markaa lagu fasiraa tafsiir bilaazim oo dilaalatu iqtidaaga waxaa ka mid ah dee waxa weeye anwaacdan iltizaamaadku oo lafdiga marka la sheego waxa kale ka laazimaya isaguna wuxuu noqonayaa shay sawaab oo saxan imka culamada ahlu sunnuhu markay daliishanayaan oo leeyihiin uxilla lakum laylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum waxay ka daliishadeen in waxa weeye calaa sixati sawmi man asbaxa junuban kii waa bariistay oo bimacnaa waagu u dilaacay fajru saadiqu isagoo janaabo qaba soomkiisu inuu asaxayo macnaha asalkay faa'iidaynaysay muxuu ahaa waxay faa'iidaynaysay galmadu inay bannaan tahay ninku xaaskiisa u galmoodo habeenkii ramadaan oo dhan hadday nuska hore tahay hadday nuska dhexe tahay hadday qaybta dhexe tahay hadday qaybta dambe tahay yacni habeenka ramadaan oo dhan buu markaa galmadii ay u bannaan tahay ninku xaaskiisii inuu tago taas iyadoo faa'iidaynaysa macnaha ka laazimaya muxuu noqonayaa hadduu markaa waxa weeye dabayaaqadii habeenka uu galmadaas sameeyo oo daqiiqad ka hor ama laxadaad iyo ilbiriqsiye ka hor intaan waagu dilaacin uu ka faaruqo oo uu camalkaa ka baxo daruuratan waxaa la garanayaa waagu wuxuu u dilaacayaa isagoo janaabo qaba dee naskaana loogu xalaaleeyey galmadaas dee shaygii loogu xalaaleeyey naska inuu soonka ka fasahaadinayo ka kharibayo soonkiisii isagoo habeenkii uun gudihiisa ay galmadu dhacday oo aynay soo dhaafin oo fajru saadiqii aanu galmada ku gaadhin waxaa laasimsanaya xalaalaynta la xalaaleeyey galmada habeenka ramadaan oo dhan taas markay laasimsanayso waxaa ka dhashay inuu waa bariisanayo bimacnaa waagu u dilaacayo isagoo janaabo qaba markaa soonku inuu asaxayaa waa ka laazimaya dalaalada noocaas ee saa looga daliishanaya waa laazim calaa kulli xaal ciddii asalka nafyiday oo tidhi ilaahay indha uma sugnaane waxaa loo jeedaa aragti ama ilaalin ta'wiil madmuumay ku dhacday ka isbaatiya ibnu cabbaas hadda haysaan ciddii asalka aan nafyin ee macnaha laasimkaa bas sheegtay waxaanu leenahay laazimu lxaqi xaqun asalkuna waa xaq waxa ka laazimayna waa xaq oo labaduba waa jiraan cidda nafyinaysa iyadaa daliilka laga rabaa wallahu aclam jaza allahu sheikh khayr aljaza su-aasha afraad waxa weeye waa maxay xukunka hadalka qofka